cid kasta oo dunida joogta waxbarashadeeda rasmigii waxay ku salaysan tahay dowladaha nooli inay qadiyadaa ilaashadaan. marka nidaamka tacliimiga iyo miidiyaha iyo cultureka iyo qaanuunka iyo waxoo dhan waxaa shaybgareeya identityga bulshadu ay leedahay. saa daraaddeed waxay dhahdeen maalan 19 waddan ee dunida ugu horeeya waddan waliba afkiisu wax ku dhigaa. waddan waliba afkiisu wax ku dhigaa. waxay dhahdaan 500 ee jaamacadood ee dunida ugu horeeya mid walba afka waddankiisa lagu dhigaa. Sweden way awoodi kari lahayd inay tidhaahdo buugagtoo dhan ingiriisaan ka dhigano iskuulkana af ingiriisiga ha lagu dhigo. way iyagoo 8 milyan ama 9 milyan ay Swedish u daba wadaan. way Norwegiyo 5 milyan ay af Norwegiyo u daba wadaan. way Denmarkiisoo 5 milyan u daba wadaa. dunida maxaa cid waliba afka 5 milyan iyo 4 milyan 3 milyan maxaa ku dhajiyay afkooda? waa culuum daat, waa culuum alhuwiya, waa dadnimadooda wixii muujinayay. cidna ma rabto inay dadnimadeeda weydo.